ilo diblomaasiyadeed oo marqaan media ay ka heshay fila Soomaaliya ayaa sheegay soo shaac bixinta isku shaandhaynta golaha wasiirada Soomaaliya oo ka dhalatay ismaha qaar kamid ah golaha wasiirada Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya markii la magacaabay golaha wasiirada waxay kadib ayaa muran waxa uu soo dhexgalay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo qaar kamid ah xubnaha golaha wasiirada oo ugu horeeyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar waxay wararku sheegeen inuu ballan qaaday beelo ka cabanayay inuu isku shaandhayn ku sameyn doono ra'iisul wasaaraha Soomaaliya taasi oo saameyn ku yeelan doonta cabashada beelaha ay soo gudbiyeen taasi oo ay dhawaan ra'iisul wasaaraha hordhigeen qaar kamid ah beelo isla markaasina ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in wasiir dheeraad ah oo ay ka cabanayeen uu ka yimi soo jeedinta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin murankan oo sii xoogaystay hadallo xanaaf lahaa oo ay isweydaarsadeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar golaha wasiirada federaalka Soomaaliya oo laga doodayay dhacdadii Nuur Faarax Jimcaale oo hanti dhowrka Soomaaliya ahaa ay xilka uga qaadeen golaha wasiirada Yuusuf Garaad ayaa kulankaasi xilka qaadista ka hadlay isla kulankaasi wasiirada gudahooda waxa uu ra'iisul wasaaraha u sheegay inuusan xilka qaadistaas aysan sharci ahayn laakiin soo jeedin ay leeyihiin golaha wasiirada laakiin taasi bedelkeeda waxa uu soo jeediyay golaha wasiirada Soomaaliya in shaqo joojin ay sameeyaan dhacdadaasina baaritaan lagu sameeyo wasiirada isku shaandhayntani ay saameyn doonto waxa kamid ah wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar iyo wasiirka amniga haddana waxa hubaal ah in warbixintani oo ay xaqiijisay hawlwadeenno ka tirsan filla Soomaaliya la sheegay in golaha wasiirada Soomaaliya isku shaandhayn lagu sameyn doono